tartanka 13aad ee gabdhaha ugu quruxda badan ee dunida ayaa maanta ka dhacay magaalada Mexico kaas oo la filayo inuu noqdo midka ugu xiisaha badan dunida. Gabadha ku guuleysata tartankan ayaa waxa ay taajka kala wareegi doontaa Shines Palacios oo u dhalatay dalka Nicaragua taas oo hadda haysata koobka. Tartankan ayaa soo maray heerar kala duwan oo kala xulid ah. 30 haween ee isku soo haray ayaa finaalka u tartami doona maanta. Waxaa ka qayb qaatay ilaa 130 dumar ah oo caalamka ka kala socda. waxaana ku jirta Soomaaliya oo ugu qayb galayso gabar lagu magacaabo Khadiijo Cumar. Ka hor tartankan bilaabanaya maanta ayaa waxaa jirta in Mia Lero oo matalayso dalka Koonfur Afrika isaga baxday tartanka sida ay ku dhawaaqeen qabaqaabiyaasha iyagoo u sababeeyay arrimo caafimaad darteed. Gabadhan 28 jirka ayaa taariikh dhigtay iyadoo noqotay gabadhii ugu horeysay ee maqalka naafaka ah ee bishii Agoosto la caleemo saaray Miss South Africa. kadib markii tartanka lagu murmay oo dhacay kaas oo sababay in lagu maadeysto mid ka mid ah gabadhii ka qayb galaysay sabab la xiriiro inay asal ahaan ka soo jeeday dalka Nigeria. Gabadhan ayaa toddobaadyo ku sugnaan Mexico oo ay ugu qayb gali lahayd tartanka indhaha lagu wada hayo. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sanadkan ka qayb galaya tartankan iyadoo Khadiijo Cumar ay noqonayso gabadhii ugu horeysay abid oo iyadoo xijaaban ka qayb gasho kuna matasho Soomaaliya. Khadiijo oo 23 jir ayaa waxa ka qayb galkeeda oo taariikh muhiim u yahay Soomaaliya maadaama iyadoo xijaaban ka qayb galayso. Dumarkan 130 ayaa waxa la gelinayaa tartan waxaana dib isugu soo haray ilaa 30 ama 25 oo laga soo xulay. Waxa inta dheer 4 dumar oo isku soo haray ayaa la xulan doonaa iyagoo gobolada laga eegayo kuwaas oo matalayo Latin America, Serbiyaanka, Yurub, Afrika iyo Aasiya. Kadib 4 dumar ayaa waxa laga xulan doonaa gabadha ku soo baxda quruxda adduunka ee 2024. Waxa ayna sanadka soo socda ee 2025 ka noqon doontaa safiirka quruxda adduunka.